بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد باجد وحرمت حرور ومالين أربعة وشنتي بيش ربيع الأول إلهي خير في هاي نسيا من آمين عشر كان قانون وحان كجهر لي هدي إلهي هذا كوميسيجا أفريقيا وبلاودي مكا وحبلاودي محوهاي إمكا وقتي بوشوبي مهمة وقتي واي وقتي مهم تدكو ما أركانبا لكن وجري وقتي haddaan kuu sheego ima aaminaysid 1960kii buu bilaabay markii riwaayadda loo dhigayay Soomaalida ee caalamka loo saarayay buluugga shanta xidigood leh calan qurux badan maasha Allah laakiin waa calan la qurmiyay oo dhiig baa lagu daadiyay markaasaa ayaa xumaaday aadan cadde madaxweynihii ugu horreeyay Soomaaliya la yidhaahdaa yaa saaray طليان يا إنجليز يا مريكان عبد الرشيد علي شرماكة يا صاري طليان يا إنجليز يا مريكان سياد بريا صاري طلياني إنجليز مريكان يا روج وشو السوفيت يونيون كلورنتي مركا إما آمني لكن وحبا ما أخرديد وحبا ما بعدد هدي أدو حاخردنا wax lagu sheegana ma daacad ma tiido ma maqashid waayo waxa ku qafilan qabiilka casharka ku jira tan way Soomaalida qabiilka ayaa uga weyn qabiilku ma xuma qabiilka Ilaahay wuxuu inoo sheegay inuu qabiil iyo ummad dadka ka dhigaysa isku kartaan xooluhu urba isku kartaan bini'aadamkuna qabiil bay isku kartaan iyo muxuu ahaayay hadalka ay isku fahmaan marka qabiilada qurba qabyaalada ka weyn wax kasta inaga macaadiinta qabyaalada ayaa ka horeysa dadka badankiisa in yar oo Ilaahay ka sifeeyay mooyaan marka qofka waxba laga madhacin karo wixii beentii qabiilkiis uu soo sheegay buu aaminay iskama shaandheynaya gumaysiga Afrika wuxuu bilowday habeenkii calanka buluuga loo saarayay 60kii buu bilowday marka imika uu ka sii daray imika ragga waxa uu fiirsatay 60kii iyo imika sufiirso raggu suurad bay xidhan jiray dumarku raggay daba yaaci jiray 60kii waxbaan bartay alloore anigoo intii kelmado yar oo Talyaani la soo dhaxgaliyay halkay imika inooga timi weeye afka Ingiriiska la soo dhaxgaliyo ama Hollandiiska ama Finishka ama Swedishka la soo dhaxgaliyo af Soomaaliga qof Soomaali la hadlay waayo waxa loo haystaa waxbaan bartay hadduu laba kelmadood Talyaaniga ku tuuro 60kii waxbuu bartay waa loo mashxarmi jiray Ingiriiska sidoo kale ilaa maanta waa taynala socota dad caddayn doonaysa waxaad dhegeysta siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta Sacuudiga Soomaali toosay kuma hadli karaan weerar jaban oo Ingiriisa ayay imika soo dhexgeliyeen marka gumaysigii uu ka sii daray marka dharka saa oo ragga dharkii baa laga bedelay waa suud midaan waxba haysan oo suud iibsanaya arooskiyo suud dumarkiyo lagu yirka tabariyada waxba barateen waxa weeye waa gumaysi maskaxda laga gumaysi ma garanayso waxaan ay soo baratay waa maxay kuwan kale le waxbay soo baratay heblaayo bari waxa lagu qabsaday gabadh waxa la yiraahdaa foosiye xajaadan baa ayaa lagu qabsaday waxaan idhiyoon يعني waxa lagu qabsanaya runta lagu qabsanaya maanta waxa jiri doonta baa la yiri neey maxay salaaxay maalin runtu lala dagaalan beentuna ay run noqoto maanta saytay idaacada u fiirso waxa allaale wixii been oo lala yaacaya runtiina waa la qabsanaya qofkii waxaan ku yiri waxay baratay bal hala sheego waxay baratay hala sheego arba wax bartay hala sheego xasan sheekh wax bartay hala sheego farmaajo wax bartay hala sheego muuse bixi wax bartay hala sheego adni waxay bartay hala sheego ma jirto waxay bartay lagu leeyahay hadaad ku tiraahdo maxay barteenna waa lagu maagaya qabiilhaan baa lagu maagaya waa qabyaalad marka gumaysiga waka dadkaas u saaray dadkaasina iyaga u shaqeeya sida loola xisaabtamo waa sida ciyaalka waa loo hanjaba haddii Ilaahay ku tusi lahaa emailada iyo telefoonada muxuu ahaayay loo diro Mareykanka iyo reer galbeedka ay u diraan dadka aad u haysteen wax barteen waad yaabi lahayd laakiin way ku faraxsan yihiin kuwaas inay noqdaan beer qaatayaal
inay noqdaan la bahdilo way ku faraxsan yihiin dadkaad u haysto inay wax barteen dadkaad u haysto madaxda u haysto waa la bahdilaa laakiin waxaa laga yaabaa aakhiro in ilaahay ku tuso maalinta iminka caqligaagu ma ku karansiinayo afrika gumaysi bay ku jirtaa marka laga reebo 4 wadan waa koonfurta afrika oo dhibaatadii soo martay baa iyaga kalsooni gelisay oo ay isku duubnaadeen Niger, Burkina Faso iyo Mali oo inama yar baa usoo kacay Senegal way ku jirtaa inama yar baa usoo kacay oo afkii Faransiiska ka bedelaya afkii wadanka muxuu ahaayay dadka baraya marka inaga waxaan u baahannahay inaan gumaysiga horta faahno gumaysiga cirra waa gumaysiga waa gumaysi la shaqayste xasan sheekh waa sidoo kale kuwa kale oo dhan waa sidoo kale yani waxaan ku tusaya tusaale hadaa taa maanta fahanto guul baynu